ciidamada badda Puntland ayaa waxa ay u dabaaldegeen sanad guuradii labaad ee ka soo wareegtay kolkii ciidamadaasi la aasaasay. warkaasi magaalada Boosaaso waxaa nooga soo diray Maxamed Deeq Cabdallah. munaasabad ballaaran oo maanta lagu qabtay xarunta ciidamada badda Puntland ee Boosaaso ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland iyo saraakiisha ciidamada badda ee Puntland. xubniyo ka tirsan ciidamada badda Puntland ayaa dowladtus ku sameeyay xaruntada Boosaaso kuwaas oo muujiyay tababarkii la siiyay dadaalkii ay sameeyeen labadii sano ee ay ciidamadaasi jirsadeen. taliyaha ciidamada badda Puntland Cabdirasaaq Diriye Faarax ayaa ugu horreyn ka hadlay aas-aaskii ciidamadan. labadaas sano waxay ku jireen tababar ciidan oo kala duwan takhasus leh iyo hawlgallo laga soo bilaabay bishii lixaad oo ay fuliyeen ciidamada badda Puntland bariga Puntland. waxaa kaloo jiray hawlgallo kale oo humanitarian ah sida raashin qaybin iyo dhaamis ilaahay ku sugan dabladayaalan arrimo kale oo ku saabsan xagga nabadgelyada nabadgelyada xagga faystooyinkii Puntland ilaalintii shirkii Soomaaliyeed garoowaan iyo garootu oo ciidankani uu aad iyo aad uga soo qabtay hawl aad iyo aad muhiim u ahayd. wasiir ku-xigeenka wasaaradda dekedaha Puntland Engineer Maxamed Ciise Lacle ayaa ciidamadan badda u gudbiyay salan uu uga sida madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Farole. waayo wax qarsoon maaha waxaan idin soo jeedinayaa aan idinleeyahay ku dhaqma wadaninimo isku kalsooni iyo culumta laydin fidinayo oo aad qaadataan. bad nin aan aqoon lahayn kama baxo, nin caadi suuqa laga soo qoray kama baxo. aqoonteena waa inaad leedahay sidaad u adkaysatid. baddu way adag tahay, ku dagaalanka duuna waaba ka sii adag yahay. waxaa la doonayaa waxaas oo dhan inaad jilibka u dhigtaan, u adkaysataan, u qadaan haddii loo baahdo, u qadaan. waayo wadaninimadu waxay ku jirtaa markaad wax kasta u adkaysatid. mar labaad waxaan ii sheegayaa halkaa ka sii wada, guulaysta walaalayaal, guulaysta. ciidamada badda Puntland ayaa la dhisay sanadii 2010 bishii 10aad afarteedii waxaana intii ay jireen xarumo kala duwan ay ka sameysteen deegaanada xeebaha ee Puntland si ay ula dagaalamaan burcad badeeda. saraakiisha ciidamadan badda ee Puntland oo maanta ka hadlay munaasabadda dabaaldegga 2 sano guurada ciidamadaasi markii la aasaasay ka soo wareegay ayaa sheegay intii ay ciidamadan jireen ay hawlo samafal ah oo kala duwan ka sameeyeen deegaanadii ay tageen sida caafimaadka, biyaha iyo waxbarashada. goobta xafladda waxaa lagu dallacsiiyay qaar ka mid ah ciidamada badda Puntland oo loo aqoonsaday inay yihiin kuwa hawlkara oo shaqadooda uga soo baxay sidii loogu talagalay. ciidamadan badda ee Puntland ee maanta xusay sanad guuradii labaad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay ayaa sheegay inay ku dhiiran doonaan la dagaalanka burcad badeeda ee xeebaha Puntland. Maxamed Deeq Cabdallah, TV-ga Somali Channel, Boosaaso.